dhulbaanta fudud ha iga hadho dhulbaanta sabir yar ha iga hadho 15 sanadood baad sabraysaan dalkiyo dadkiyo diintaba difaac bay ka rabaan ciidamo deeqay rabaan dowladahana tay rabaan dalkiyo dadkiyo diintaba difaac bay ka rabaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البدن إذن ما أورنيو ماشتن هذا وحاكم دجال باك السعودة ميل هذا البدن وباهن ماها أدبدو مهد سنتين السودوينتا سعدال كان آن دول البدن كسو مري ماشي يقوس الرئيسي القمة سعدال كي برتا يقوس الرئيسي سيدي بورتو أقول هذا هاي جودك meesha ugu sareysa waa kulankan hadda aynu aan garaadadii beesha dhulbahante iyo fiqishandi aan kula kulmayo ka dhamaantiiba aad iyo aad baad u mahadsantihiin in yarun baan oranayaa inta yaraan oranayaa waxay tahay Soomaalidu waa tii isxaman jirtay dhulbahanta fudud ha iga hadho waraaqaha aad soo saarteen iyo go'aamada aad gaadheen waxay muujinayaan miyiraad weyn miyir iyo ka fiirsi iyo ka baarandeeg aad iyo aad weyn waxaan ka baqaayay maalmihii u horeysay oo jiraysan intaan xabadu dhicin waa jirka ku jirteen inaad habeenayo maalin go'aamo ku soo saartaan ma ay dhicin in dooraad u fadhideen go'aamadii aad soo saarteenna wali waraaq sida u qoran dawladda federaalka kama arag xitaa dawladda federaalka kama arag waxay ahayd wuxuu ahaa baaq iyo go'aamo aad loogu fiirsaday oo aad looga baaran degay dhulbaanta sabir yar ha iga hadho 15 sanadood baad sabraysaan dhulbahantaan xaqa u midoobin ha iga hadho saddexdaasuba waa baxeen inta saddexdaasuba iga hadheen dhacdadan la saanood waa inaynu meelaynaa kacdoonkan la saanood ka dhacay oo ka socda waa inaynu meelaynaa oo taariikhda ku meelaynaa taariikhdu way hadashaa ninkii macnaheeda la baxaya way hadashaa jihaadkii aad la gasheen isticmaar iyo ingiriis maantu soo xidhmaya dhaxalkii isticmaarka ee aad la dagaalamayseen ka raba inuu soo celiyo iyo isticmaarkii isla mid jihaadka aad gasheen 100 sanadood ka hor maantu soo xidhmaya daawicii idin gaaray maanta macnawiyan tira ahaan iyo hantiba isa soo celisa diif weyn diif dhaawac iyo diif aad u weyn ayaa dagaalka idinka soo gaaray iyo jabkii daraawiishta idinka soo gaaray ma dhamaan dagaalkaas maantu soo afjarmaya dhaawicii idin gaarayna macnawiyan maanta laga bogsanaya aad ka bogsanaysaan dawladda federaalkana yar baan oranayaa waliba gaar ahaan xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad ku celcelisaa xoog ku daymayno Soomaaliland cidina xoog kaaga ma baahna kacdoonka la saanood iyo guusha ka dhalatay waa fursad aad u weyn Soomaaliya lagu midayn karo cidina xoog kaaga ma baahna fahamkeeda yeelo waxa dhacay faham inaad fahantid baa loo baahan yahay Somaliland iyo wixii ay rabtay laascaanood baa barida dhulka ugu dhufatay haddaad rabtid Soomaaliya inaad midaysid maanta fursad weyn ayaad haysaa siyaasad baad ku midayn kartaa cidina xoog kaaga ma baahna xayndaabkan aad ka hadlaysaa aad leedahay xayndaabka midnimada aanu ilaalinayno bay ka mid tahay xayndaabkaas macnaheedu waxa weeye intii Ingiriis xukumi jiray oo dhami Somaliland bay isku yihiin
iska ilow Somaliland ka kooban intii Ingiriis xukumi jiray ma dhacayso iska ilow fursad baad haysataa maanta aad ku bilaabi kartid halgan cusub iyo siyaasad cusub cidina xabad kaaga ma baahna Somaliland waa horaan iridan xisaab baa keeni doonta ay xisaabtanto oo ka xisaabtanto khasaariyo faa'iido ay ka xisaabtanto waaga laascaanood baa xilligan hadalka lahaa laascaanood baa kacdoon ka dhacaya ismaan lahayn ma ogeyn maantay timi damba keeni doonta Somaliland fursadda maanta aad haystid aad Soomaaliya lagu midayn karo fahan ergaygana aad magacawday qiimo ay leedahay magacaabidaas ma jirto ka bilow laascaanood oo xaq ka hadal Somaliland waxay leedahay waxaanu laascaanood u garaacaynaa midnimadayada dhuleed baanu ilaalinaynaa yaa midnimada dhuleed xaq u leh dawladda Soomaaliyeed baa xaq u leh midnimada dhuleed waa xaq la yaqaan oo duwali ah oo la yiraahdo territorial integrity waa xaq ay dawladuhu u leeyihiin inay dhulkooda difaacaan dawladda Soomaaliyeed baa leh xaq adiga lagu xil saaray inaad ilaalisid ay Somaliland sheeganaysaa oo dadka lagu leynayaa oo aadan adiguna ka hadlayn waxaan rabbi ka rajaynayaa inaad fahantid oo aad xaq u soo noqotid mar labaad aad iyo aad garaadow shacabka laascaanoodow inta dagaalamaysay inta u hiilinaysay dhamaantiin waad mahadsantihiin guul baynu Ilaahay ka baryaynaa